haatan waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyey xiisadaha colaadeed ee ka aloosan gobolka bariga dhexe xagga hormuus aynu ku horumarnay ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa daboolka ka qaaday in marinka hormuus weli uu xiran yahay isla markaasna maraakiib kasta oo doonaysa inay ka gudbaan ay qasab ku tahay inay ogolaansho ka helaan ciidamada badda ee Iiraan war ay soo saareen taliska ciidamada badda ee IRGC oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in sheegashada taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka CENTCOM ee ah in isu socodka maraakiibta uu si caadi ah uga socdo marinka isla markaasna uu ku jiro xayndaabka ilaalinta Mareykanka ay tahay mid aan sax ahayn dhinaca kale ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa ku dhawaaqay in ay beegsadeen 2 markab oo shidaal sida kuwaasi oo ay sheegeen inay isku dayayeen inay waaberigii maanta ka gudbaan marinka hormuus iyagoo maraya waddo aan la shaacin isla markaasna ay taageerayeen Mareykanka ciidamada Iiraan ayaa sheegay in 2 markab aysan ka jawaabin degnino ay ciidamada Iiraan siiyeen ka hor intii aan la beegsan waxay sidoo kale taasi ku dareen in 4 markab oo kale ay bedeleen jihadii ay ku socdeen isla markaasna dib ugu laabteen goobihii markii hore ay ku sugnaayeen dhacdada kadib sheegashooyinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisada marinka hormuus ceerka ay ku laaran tahay war kale oo colaadan la xiriira wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu daabacay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ay toddobaadkan aqalka cad kaga wada hadleen suurtagalnimada in Iiraan lagu soo rogo go'doomin dhanka dhulka ah sida wargeysku sheegay labada nin ayaa ka wada hadlay sidii cadaadis loogu saari lahaa Iiraan arrinkan iyadoo la adeegsanayo tillaabooyin militari iyo kuwa aan militari ahayn kadib bilooyin ay socdeen iska horimaadyada sarkaal sare oo Israa'iili ah oo wargeyska The Telegraph uu soo xigtay ayaa sheegay in la falanqeeyay suurtagalnimada in Iiraan laga hor istaago inay dhulka wax ku soo dhoofiso waxna ay sidoo kale ku soo dejiso iyadoo la xirayo marinada dhanka dhulka wargeyska wuxuu xusay in qorshahan uu beegsan karo marino muhiim u ah dhanka Iiraan ha yeeshee waxa adkaanaysa baa leeyahay in si buuxda loo hirgeliyo maadaama dalka Iiraan uu xuduud dheer la wadaago dalal fara badan oo ay daris yihiin war goordhawata soo dhacay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Israel Katz ayaa isna waxa uu sheegayaa in Israa'iil ay ku biiri doonto weerar military oo ka dhan ah Iiraan haddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si rasmi ah uga dalbado Israa'iil inay ka soo qayb gasho dagaalka Katz ayaa waxa uu sheegay in Tel Aviv ay diyaar u tahay inay taageerto howlgal kasta oo military oo Washington ku beegsanaysa Iiraan haddii codsi caynkaasi uu ka yimaado maamulka Mareykanka dhanka diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh xiisadaha colaadeed ee bariga dhexe in ay dejiyaan xaaladda isla markaasna ay muujiyaan isxakamayn wasaaraddu waxay ku nuuxnuuxsatay inaysan jirin wax muwaadin Shiineys ah oo waxyeello ay ka soo gaartay weerarka lagu qaaday dhismo ku yaal dalka Kuwait oo ay deganayd shirkadda Shiinaha laga leeyahay Shiinaha ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda Kuwait inay qaado tillaabooyin muuqda oo lagu xaqiijinayo badqabka muwaadiniinta iyo hay'adaha Shiinaha ee ku sugan waddankaasi Kuwait warkaasna intaas aynu kaga gudubno haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga arrimaha dagaalka ciidamada istiraatiijiyadda arrimaha diblomaasiyadda sirdoonka iyo siyaasadda sidoo kale xubintan waxaynu ku gorfaynaa waxyaabaha waaweyn ee warbaahinta caalamku ay qorto ama ay baahiso falanqayntan si gaar ah waxaynu ugu eegaynaa xaaladda bariga dhexe oo ka sii daraysa xaalkana waxaa la sheegayaa inuu ku dhow yahay dagaalku in uu ballaarto saacadihii u dambeeyey Sacuudiga ayaa waxa uu ugu baaqay Iiraan inay joojiso weerarada ay ku hayso Jordan iyo wadamada Khaliijka haddaba marxalad khatar ah ayaa la gelayaa maxay yihiin suurtagalnimada muujinaya qarax dagaal oo ka dhasha hanjabaadaha Trump iyo jawaabta Iiraan
derbiga kalsooni darrada ee u dhaxeeya Maraykanka iyo Iiraan ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay ee abad la diiwaan geliyo iyadoo ay sii socdaan iska horimaadyo military oo halis gelinaya in dagaaladu ay ku fidaan kaabayaasha tamarta iyadoo aanay jirin wax calaamad dhab ah oo muujinaysa xabajoojintu inay dhowdahay. Gary Seymour oo horey u ahaa isuduwaha aqalka cad ee arrimaha ka hortagga faafitaanka hubka ayaa aaminsan in sii socoshada howlgallada weerarada ee ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee loo yaqaano IRGC ay ku riixi doonto madaxweyne Donald Trump inuu weerar ku qaado xarumaha tamarta iyo kaabayaasha muhiimka ah ee gudaha Iiraan isagoo ka qayb qaadanayay falanqayn uu baahiyay telefishinka Al Jazeera. Seymour wuxuu ka digayaa in Washington ay awood u leedahay inay gaarsiiso Iiraan waxyeello aad u weyn balse Tehran ay sidoo kale leedahay awood ay ku beegsato kaabayaasha shidaalka ee wadamada khaliijka Carabta iyadoo adeegsanaysa dayuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaaladeeda taas oo gobolka geli karta ama qarka u saari karta marxalad aad u khatar badan sida uu yiri qabiirkaasi. 2 maalmood ka hor Trump wuxuu ku hanjabay inuu si adag u beegsan doono Iiraan isagoo sheegay in Maraykanku uu Iiraan bari doono 10 adag sida hadalka uu yiri taas oo la xiriirta weerar lama filaan ah oo degdeg ah oo lagu qaaday ciidamada Maraykanka ee Jordan ku sugan. wuxuu sidoo kale kooxaha hubaysan ee Iiraan ay Iiraan taageerto ku tilmaamay kansarka adduunka. dhankiisa Mukhtaar Haddad oo ah tabaftiraha guud ee wargeyska Al-Waafaq ee Iiraan ka soo baxa oo isna falanqayntan ka qayb qaatay ayaa tilmaamay in derbiga kalsooni darrada ee u dhaxeeya Tehran iyo Washington uu weli aad u sarreeyo taas oo ay sabab u tahay guuldarrada Maraykanka ee hirgelinta heshiiskii is-afgaradka kaas oo noqon lahaa buu yiri saldhig lagu gaaro heshiiska madambays ah. Haddad wuxuu carabka ku adkeeyay in isku day kasta oo lagu bedelayo qodobada heshiiska is-afgaradka ama waxa loogu darayo ay Iiraan si cad u diidan tahay isla markaasna kubaddu hadda ay taal dhanka Washington. wuxuu sheegay in sii socoshada habdhaqanka military ee maamulka Maraykanka iyo tixgelinta damacyada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu aysan joojin doonin wareegga iska horimaadyada balse xaaladda ay dib ugu soo celin doonaan halkii markii hore ay taagnayd. dhankiisa Gabriel Soma oo horey la taliya ugu ahaa ololaha doorashada madaxweyne Trump ayaa isna wuxuu sheegay in dalabaadka Maraykanku ay diiradda saarayaan burinta ama wax ka beddelka heshiiskii nuclearka ee 2015 ogolaanshaha kormeer aan shuruud lahayn oo lagu sameeyo goobaha nuclearka ee Iiraan joojinta horumarinta gantaalada balastiga ee halista ku ah Yurub iyo soo afjaridda taageerada Iiraan ay siiso kooxaha hubaysan ee gobolka. hase yeeshee Haddad ayaa wuxuu kaga jawaabay taas in dalabkan aysan ku jirin ajandaha wadahadallada isla markaasna Iiraan ay u aragto xariiqyo cas maadaama awoodeeda difaaca ay yihiin saldhigga awoodeeda ee ay kaga hortagto sida uu yiri gardarrada Maraykanka. wuxuu tilmaamay in kaarka Marinka Hormuus uu yahay mid ka mid ah kaararka muhiimka ah ee Iiraan gacanta ay ku hayso. waa intaasi dheer rabitaanka shacabka, awoodaha difaaca iyo taageerada dadweynaha. wuxuu sheegay in Maraykanku uu doonayo inuu gacanta ku dhigo Marinka Hormuus balse Iiraan arrintaasi ay diidan tahay isla markaasna ay u aragto in marinku uu yahay arrin u taala Iiraan iyo wadamada gobolka gaar ahaan saldanada Cumaan sida ku cad heshiiskiisa afgaradka. wuxuu ku adkaystay qabiirkan reer Iiraan in rabitaanka Iiraan uu yahay saldhigga lagu dhaqaajinayo dhammaan kaararka awoodaha iyo hubka lagu wajahayo cadaadiska Maraykanka. falanqeeyaashu waxay ku soo gabagabeeyeen falanqayntooda in sii socoshada iska horimaadyada military iyadoo aan xal diblomaasiyad loo helin ay halis gelinayaan in dagaalka uu ku fido kaabayaasha muhiimka ah ee gobolka. waxay sidoo kale ka digeen in weerar kasta oo Maraykanku uu ku qaado xarumaha tamarta ee Iiraan uu la kulmi doono jawaab la mid ah oo Iiraan ay ku beegsanayso xarumaha shidaalka ee wadamada khaliijka taasi oo horseedi karta korar weyn oo ku yimaada qiimaha tamarta isla markaasna halis gelin kara dhaqaalaha caalamka.
falanqeeyaasha waxay ku baaqayaan in dib loogu laabto miiska wadahadallada si loo hirgeliyo heshiiska is-afgaradka ee hadda jira halkii loo jihaysan lahaa iska horimaad furan oo cidna aanay gaari karin ujeeddada ay leedahay ama aysan ogeynba halka uu ku dambayn doono inkastoo Washington iyo Tehran ay 18 Juun 2026 kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo ay ku jiraan joojinta hawlgallada military iyo